Good morning! Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night. calankagu waa hibo sharafkugu hagoogane ciidaadu waa hodan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عشر كين وحاو كساب سنيهي وفوكابولاريز أما واريس وإريو إريدا سوكها الليا أما سيكو سابسن hospital وعسبتالكي أما دختركي health عافماتكي and medicine واريس إريدا داوينكا in English إنجليزدا إريدا لا تعلقة داودا إريدا لا تعلقة عافماتك إريدا لا تعلقة أما سلا حريرا عسبتالكا أما دختركا part 1 قيبتي كواد أين قادنين إن شاء الله receptionist waa soo dhaweynta accident waa shil ambulance waa gaarigii ambalaaska ahaa ee gargaarka degdega aspirin waa daawadii waxaa loo qaataa madax xanuunka qanjo xanuunka ama qumana xanuunka waa antibain oo waxay daaweynayaan xanuunka ama waa xanuun baabi'iyaal bandage waa faashadii ama bandagekii nabarada lagu duubay bleeding waa dhigbax blood waa dhiigii blood pressure waa dhiigkarkii bone waa laftii broken waa jabid bruise waa nabar baan gubasho cancer waa xanuunkii kansarka ahaa cavity waa ciridka ilkaha check up waa hubin ama jeegarayn sida xaaladaada caafimaad oo kale clinic waa goob caafimaad oo shaybaadh cold qabow dhaxan contagious waa faafid badan xanuunku markuu faafayo caf qufac dentist dhakhtarka ilkaha diabetes waa sonkortii ama macaankii diet waa cunto dheelitiran macnaa cunto dheelitiran maxaynu ka wadnaa borotiin carbohydrate minerals macdanihii oo dhan bay ka kooban tahay disease xanuunkii doctor waa dictoorkii emergency xaalad degdega exercise jimicsi fever xumad ama seqandho first aid waa gargaarka degdega flu duray ama hargab headache madax xanuun heart attack wadna xanuun home remedy waa daaweynta guriga ama isku daaweynta guriga oo dhexdiisa isku daaweyso ayaa loo yaqaano home remedy illness xanuun infection caabuq insomnia waa hurdo la-aan oo waa xanuun insomnia waa sleepless ama shortage of sleeping medical insurance waa caymis caafimaad ama adeeg caafimaad medical caafimaad nurse waa kalkaalisadii ama neerastii halkaas ayay inagu soo dhammaatay ama inagu soo ilaadeen qaybtii koowaad ee ereyada ku saabsanaa caafimaadka dhakhtarka ama cisbitaalka sidoo kale daawooyinka la socod wanaagsan qaybta labaad ama part 2 ereyadan waxay kaa saacidayaan haddii aad booqato dhakhtar
sidoo kale aad booqato farmashi, sidoo kale goob caafimaad aad booqato haddii dawadii ay tahay, haddiise ay tahay xaaladii caafimaad, iyo cisbitaalka ereyada loo isticmaalo ama cisbitaalka gudihiisa ereyo gooniya ama u gaara ayaa loo isticmaalaa. la socod wanaagsan qaybta ku xigta insha Allah. In case I don't see ya. Good afternoon, good evening. Yeah.